waxaa gobolka Minnesota xalay lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ururada bulshada, ganacsato, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo ka kala timid gobolada Mareykanka ilaa Canada. munaasabadani ayaa lagu xusay sanad guuradii 8aad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaalida. munaasabadani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Aadan Ugaas Axmed isagoo ugu horeyn u mahadceliyay dadka munaasabada ka qayb galay, wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo sharafta iyo wanaagga haldoorka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. xafladan oo ah mid ay bulshada sugto sanad walba ayaa waxaa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan. sidoo kale munaasabadan waxaa qayb weyn ka ahaa isku xirka dadka horumarka gaaray isla markaana guuleystay iyo kuwa maanta hiigsanaya in ay ka guulgaaraan hamigooda iyo hankooda. sanadkan waxaa abaalmarino la guddoonsiiyay dad kala duwan oo ka mid yahay Cabdi Bile Cabdi, waxa uu noqday qofka kaliya ee abaalmarin dahab ah u soo hooyay Soomaaliya, wuxuuna guulo taariikhi ah ka soo hooyay tartanno caalami ah taasoo ku kasbaday xushmad iyo sharaf gudaha iyo dibadda. marka Cabdi Bile Cabdi wuxuu ku dhashay magaalada Laascaanood. Cabdi Bile wuxuu ku guuleystay horyaalkii koobkii General Daawud sanad walba la qaban jiray ayuu ku guuleystay orodka markuu bilaabay. wuxuu u gudbay marka xulka qaranka ayuu u gudbay inuu markaas u ciyaaro. sidoo kale ciyaaro badan ayuu ku matalay dalka Soomaaliya. wuxuu soo bandhigay horumar aad loola yaabay isla markiiba, yani hibada uu Ilaahay ku siiyay. hibadu waa wax cajiib ah. isagoo kubadda cagta jeclaa ayaa markiiba firfircoonida iyo hibada orodka markii la arkay wuxuu ku biiray marka uu u gudbay heer caalami inuu markaas u ciyaaro orodkii uu dalka Soomaaliya ku matalo. sanadkii 1983 ayuu marka deeq waxbarasho ka helay dalka Mareykanka. jaamacadda George Mason ayuu scholarship deeq waxbarasho ka helay gobolka Virginia. sanadkii 1984 wuxuu ka qayb galay ciyaarihii Olympiga ee Los Angeles lagu qabtay. wuxuu markaas u soo gudbay finalkii 12kii ciyaartoy ee ugu fiicnaa ayuu ka mid noqday sanadkaas Cabdi Bile. sanadkii 1985 ilaa 1987 wuxuu ka qayb galay ciyaaraha horyaalka jaamacadaha NCAA-da isagoo markaas kaalinta koobaad ku guuleystay. waad dareemi kartaan sanadkii 1987 record ayuu jabiyay NCAA-da markuu ka qayb galay. rekoordo badan ayuu jabiyay. inta badan waxaan maqalnaa ciyaaraha adduunka, laakiin NCAA-da inteena badan waa ognahay waxaa ka soo baxa ciyaartoyda dalka Mareykanka ama adduunka ugu orodka badan ayaa ka soo baxa tartan ahaan. marka 1500 mitir ayuu maaragtay markaas isagu ku guuleystay. in badan oo dacyar hadda shaqada uu hayana hadda gobolkeena dhalinyaro iyagu hadda hamigoodu yahay inay NCAA-ga ka ciyaaraan ama kuliyadaha ka ciyaara ayuu hadda macallin u yahay oo tababar ah. sanadihii 1987 ilaa 1990 wuxuu ahaa horyaalka ama xidiga koobaad ee adduunka marka la fiiriyo 1500 mitir qofka koobaad ama xidiga koobaad ee 3 sano haysta ayuu ahaa. kaalinta koobaad ayuu ku jiray. sanadkii 1989 wuxuu ku guuleystay ciyaarihii adduunka isagoo Afrika markaas wadankeena matalay. guud ahaan waad dareemi kartaan muddadii 16 sano ahayd oo markaas uu Cabdi Bile ku jiray ciyaaraha orodka. kadib wuxuu u gudbay inuu tababaro noqdo. sidaan idin sheegay ma soo koobi karo taariikhda Cabdi Bile. haddii aan isku dayana waxaa laga yaabaa khaladaad badan inaan sameeyo. marka aniga oona hadalka idinku dheeraynin waxaan rabaa fadlan inay la soo dhaweysaan Cabdi Bile Cabdi oo caawa la siinayo abaalmarinta Lifetime Achievement Award. aad iyo aad ayay sharaf iigu tahay ka soo qaybgalka xafladan quruxda badan iyo sida loo soo agaasimay iyo dadka quruxda badan ee fadhiya inaan caawa nasiib u yeesho inaan ka soo qayb galo
si gaarana xushmad lena aniga maartay la iigu maamuuso marka ugu horeysa runtii waxaan u mahadnaqayaa ugaaska aadan ugaas iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa iyo sida uu maartay xafladana inuu sameeyay anigana si gaara runtii uu maartay iigu maamuusay ugaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka ku xigta runtii dadweynihiina sharafta leh ee ka soo qayb galay ee aan caawa halkan waqtiga fiican ku wada qaadanay kuna sii qaadan doono aad iyo aad baan idinkana idinku mahadnaqayaa soo dhawaada aad iyo aadna waad u mahadsantihiin yaa sharaf iyo xushmad baad mudan tihiin inta markaan ka gudbo runtii intaanan wax kale oran iyadana waxa caawa waxay la socotaa xaaskii yaa aanu nafta wadaagnay Shaadiye Maxamed Xaaji Nuur هذا يستاقون سكن يا كوري كاستا او ديسان waxa weeye xididadiisa iyo jiridiisa iyo inta haysaaba ama kicisa ama wax ka dhigtaaba waxa weeye waa hooyada waa xaaska jiridaas iyo xididadaas baana u baxay caleenta bixiya marka runtii waxa weeye reer adag bay dhowr iyo 30 sano soo korisay soo dhistay wayna ka kaftantay oo maalin baa nin gaalaba wuxuu weydiiyay annagoo caruurtiina wada socoto saddexdii caruur ahaaba mareen saddex ciyaal baanu leenahay ma sha Allah ayuu wuxuu yiri caruurtu way misa markaas waxay ku tiri waa 4 markaas uu yiri saddexdan mooyaane yaa weheliya wasay diri deekan isma soo ma koriyo ya marka de koritaankii ma ka qayb galay boogtay ya marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye taasina runtii waxa weeye de annagu de amaan iyo kelmado la yiraahdo waxba ma taraane waxa weeye de jasaakallahu khayran baanu kuleenahay moogtay ilaahay ka jaaysa mariyo markaan taaleeyahayna runtii uma jeedo Shaadiye oo kaliya waxaan u jeedaa dumarkoo dhan baa nolosheena laf dhabar u ah oo runtii reer walba ayay u taagan tahay taasi marka dumarku aad iyo aad bay maartay xushmada iyo maartay u mudan yihiin in la siiyo haddaan taa ka gudbo anigu weligeeba waxaan u taagnaa waxa weeye in dadnimadeena iyo sumcadeena iyo calankeena iyo aynu wax noqono runtii waxaan oran karaa kulli imanka 60 baan jira madaxiina cadaa imankan baloon noqday baloonkii waa qurux baalkii mugta ya marka runtii intaas runtii waxaan ku dhaaran karaa oo wallahi ku oran karaa inaanan weligay 60 ka sanadood aanan wax dantayda oo shaqsinimo aanan ka fikirin maalin kaliya ama saacad kaliya oo aan ka fikiray wax aniga ii dana oo ii khaasa runtii ma xusuusto mana sameyn mana dhicin mar walba waxay ahayd wax ummadayda dalkayga khoseeya marka waxa weeye kulli dadkaaga u madhabi ku tahay waxa dadkaaga u qabatid baa wax ku maraan imaaraadka tababarayay haddaan ka soo qaato imaaraadkaanu ka baxnay ciyaaraha Asian Games baanu aadnay nooc waliba uu maraya ciyaaraha 85 qof baanu ahayn waxa ku jirtay gabadh uu boqor ku dhalay oo iyadoo fardaha ku ciyaarta kubadihii baa maraya cid kasta maraysa waa la isla maartay balbala la iska wada dhigaya imaaraadka sanadka hal bilad oo dahab oo imaaraadku qaatay oo aan keenay ninkii maalinta tiimka iyaga orodada madaxda u ahaa uu dambaabay nimankuna madaxa isjaran asarkii hospitalku galay dhiigii baa ku kacay sonkor baa ku kacday balaa ku kacday iyadoo madaxa la hayo baanu imi oo uu leeyahay hadii maanta wax la keeni waayo hadii wax la keeni waayo de waxa weeye waa meeshaydii madaxa la iga jaraya seef ba halka iga saaran kelmadu isticmaalay waxay ahayd seef ba halka iga saaran marka kelmadu isticmaalay waxay ahayd oo ku dambaabay wuxuu yiri maanta
ilaahay iyo cabdi baan leeyahay ninkii madaxa la hayay biladii baan soo qaadnay markaan soo qaadnay waana biladii kaliyahay inuu tiifiyadii la hadlo ayuu carro intuu diyaarad raacay ayuu aniyo gabadhii bilada qaaday hoteelkii nagaga tagay soomaaliya waxa dad kale u qabanaysa waa waxa marka waxa weeye runtii intaana wuxuun amuuro wax Soomaaliyeed baan la soo rafanayay imanka intaan Minnesota imina runtii aad iyo aad baan waxaan oran karo waan dadaalayay baan qabtaa ummadda u qabtaa anigu maalintan ciyaaraha bilaabay ama markastaan wax ku dhaqaaqayay waxa iga hayd meel ka gaad waxa iska samee maaha hadday wuxuu isnoqoto iska samee iminka wax kastoo la sheegayay qofkii ugu horeeyay bilaabay baa la sheegay Cabdinaasir waxa weeye waa law firmkii ugu horeeyay baa la lahaa sidaas oo kale waa real estate-kii ugu horeeyay waa qoladii ugu horeysay waxaan bilowday marka haddaad waxa bilaabaysid ka ugu wanaagsan noqo marka hadda waxaynu rabnaa wixii iska samee maahe inaynu soo saarno dhalinyaro guula keenta scholarships hela mustaqbal yeesha adduunka bilada ka keena talent baynu leenahay waynu geynaa waynu gaadhnaa waynu awoodnaa inaynu maaragtay wixii u soo jeensano iska gacan qabanno waxaan ku soo gabagabeynaynaa Soomaaliya hadday iyadu gabdhaha isqabsato waxbay noqonaysaa oo isku tashato aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awaadka abaalmarinta ay hadda la siinaya Cabdi Bile abaalmarinta inta la bixinayo Hiba Nuura waxay ii sheegtay iyada iyo Allah u naxariisto Khatar Daahir inay ahaayeen labadii qof ee markii wadanka guushu soo hoy ku soo noqday loo xil saaray soo dhaweynta inay gobol walba u raacaan gobol walba Soomaaliya ma insha Allah caawana warkayda sidis